Sirdoonka Artifishalka AI ayaa hadda akhriya dhididkaaga si uu u ogaado calaamadaha hore ee cudurrada. Dhididka iyo xogtiisa qarsoon. Saynisyahanadu waxay ogaadeen in kiimikada ku jirta dhididka bini'aadamka ay ka sheegi karto wax badan oo ku saabsan jirkeena intii hore la fahmay. Teknolojiyado cusub ayaa awood u leh inay fasiraan qaab dhismeedka molekularka ee dhididka, taas oo bedeli karta sida aan u kormeerno caafimaadka iyo ogaanshaha calaamadaha hore ee cudurrada. Dhididku wuxuu xambaarsan yahay calaamado badan oo bioloji ah. Daraasad lagu daabacay Journal of Pharmaceutical Analysis ayaa muujisay in isku darka AI iyo dareemayaal casri ah uu dhididka ka dhigi karo hab cusub oo lagu raaro isbeddelka hormoonada iyo biomarkers-ka leh waqtiga-dhabta ah, kormeero heerarka daawooyinka jirka, ogaado calaamadaha hore ee cudurrada sida sonkorowga, kansarka, Parkinsons iyo Alzheimer's. Faa'iidada ururinta dhididka. Diane Borden, University of Technology Sydney, ayaa tiri, ururinta dhididka waa mid aan xanuun lahayn, fudud oo aan duulaan ku ahayn jirka. Waa beddel soo jiidasho leh oo dhiiga ama kaadida ah, gaar ahaan marka la doonayo kormeer joogto ah. Waxay ku dartay, qof kasta oo horey u isticmaala qalabka la xidho sida adblewed si uu u kormeero garaaca wadnaha, tirada tallaabooyinka ama cadaadiska dhiiga, wuxuu xiisayn doonaa xogta dhididka. Waxaa horey suuqa uga jira qalabyo sida gatorada sweatbot oo ah sticker la xidho hal mar oo ku xirma app si uu u falanqeeyo heerka dhididka iyo luminta sodiumka, isla markaana bixiya talooyin gaar ah. Dareemayaal cusub oo la xidho. Horumarka degdega ah ee microfluidics, electronics dabacsan iyo wireless technology ayaa fududaysay horumarinta dareemayaal cusub oo khafiif ah oo maqaarka ku dhega, kuwaas oo dhididka si joogto ah u ururiya. Tani waxay fure u tahay hog caafimaad oo ballaaran oo joogto ah. AI iyo ogaanshaha caafimaadka. Marka dareemayaashan lagu xiro AI, waxay awood u yeeshaan inay aqoonsadaan metabolitis gaar ah oo ay fasiraan calaamadaha bioloji ee adag. Tani waxay siin kartaa dadka hog caafimaad oo gaar ah, digniino hore oo cudurro kala duwan ah. Ciyaartoyda waxay si toos ah u raari karaan heerarka electrolytis inta lagu jiro jimicsiga, waxayna mustaqbalka u adeegsan karaan xaqiijinta inay ka madax bannaan yihiin daroogo ka hor tartanka. Dadka qaba sonkorowga. Mustaqbalka, qalabkaani wuxuu kormeerayaa heerka glucoseka dhididka halkii dhiig laga qaadi lahaa. Dhididka oo loo adeegsado caafimaadka ka hortaga. Jane Ma'auley, Faculty of Science ayaa sheegtay, dhididku waa dareere caafimaad oo aan si fiican loo adeegsan. Awoodda lagu cabbiro biomarkers badan hal mar lana gudbiyo xogta wireless waxay leedahay fursad weyn oo daryeelka caafimaadka ka hortaga ah. Waxay ku dartay, sanadkii 2023 wuxuu ahaa tallaabo horumarineed oo AI ah, taasoo albaab u furtay falanqayn qaab dhismeed iyo algorithms cusub oo hagaajin kara saxnaanta ogaanshaha iyo daaweynta. Mustaqbalka dhow, AI hadda waxay awood u leedahay inay ka shaqayso xog aad u badan si ay u xiriiriso calaamadaha molekularka ee dhididka iyo xaaladaha jirka. Waxay horumarinayaan qalabyo microfluidic ah oo dareen leh oo ogaan kara xitaa raadiyar oo biomarkers ah sida glucose iyo cortisol. Inkasta oo cilmi-baaristu weli ku jirto heer tijaabo ah, haddana xiisaha ganacsiga ayaa sii kordhaya. Borden ayaa ku daray, ma jiraan waqti badan oo naga xiga mustaqbalka halkaas oo qalabkaaga la xidho uu ku sheegi karo marka heerka hormoonka walbahaarka uu sareeyo iyo haddii aad khatar ugu jirto cudurro dabadheer.